maalintaas noocaas tusaalahaan maalinta talaadadoo kale ah inay geyso isbitaalka oo ciyaalka ay jeekin soo mariso jeekinkii bay ciyaalka u kaxaysay qofkan marka qorshaha laga damacsan yahay ciyaalkan maaha laakiin waxaa la rabaa gurigaas inta ay ka maqan tahay in CC camera sentimetradu aad u yihiin guriga in lagu xiro waxyaalaha la ilaalinaya marka waxaa ka mid ah in qolka jiifka kale lagu xiro waa laga ilaalinaya laakiin waxaa lagu xirayaa qolka fadhiga albaabka laga soo galo jikadoo kale lagu xirayaa gabadhii meeshii bay tagtay waiting roomkii tagtay ilaa waa qof la rabo saacadaha ay halkan joogayso in lagu xisaabtamo oo gurigii arrintii lagu xiro kaameradii la fuliyo waitingkiisa u joogtay markii CC kaamerooyinka lagu xiray oo ninkii yiri technique ahaa waa dhamaystay hawsheeda baa ciyaalkii iskaan la mariyay waxa la yiri ciyaalkan natiijadooda waa 3 isbuuc kadib baa soo celi doontaa ballan kale aan kuu soo direynaa gurigii bay ku laabatay ninkii waa iska yimid habeenkii ciyaalkii iska soo dhexgalaa uu iska yimaadaa duhuradii uu iska yimaadaa habeenkii hadduu doono gurigiisu iska seexdaa ilaa gabadha xalaal buu ku qabaa xagga dawladda un bay separate kaliyihiin moogti 3 isbuuc kadib baa gabadhii ballantii labaad oo u soo dhacday ciyaalkii qaaday isbitaalkii bay geysay jeekinka resultigii wixii la soo siinay waiting roomkii baa sidii loogu hayay nimankii waa yimaadeen CC kaamerooyinkii bay la baxeen ciyaalkii markii iskaankii natiijooyinkii ciyaalka wax saasa ma qabaan baa layidhi qabo waxyaalahaas iska jiro daawe wax aan mataqaanaa dee saa cudurro ma qabaan baa layidhi waa ciyaalku way fiican yihiin guriga ku celi way soo laabatay muddo bila kadib warqad baa usoo dhacday labadoodiba xafiiska waxaa ka rabaa immigrationka meeshii tageen waxa lagu yiri labadiinu ma isqabtaan mise waa kala tagteen maya waa kala tagna way okay labadiina haddaa isqabtaan oo haddaad kala tagteen isku guri miyaad ku nooshiin mise laba guri waa ku kala nooshiin may laba guri ma ku kala noolna maalinka uu ninkan ciyaalkiisa soo booqanay waa maalinta sabtida axaddu ninkan ciyaalkiisa soo booqdaan raalli ogahay inta kalena gurigayga ma yimaado computerka waa la soo jeediyey waa loo talkan waxaa la yidhi maalinta noocaas saacadaas guriga soo galay saacadaasuu ka baxay saacaddaa qolka fadhigu joogay saacaddaa waxaan ku yidhi halkaas ku wada cuntooynayseen habeenka markii saacaddaa la gaaray qolka jiifka wada gasheen xaqii xuquuq uma lihin inaan gurigeena gudaha aan qaybta jiifka duubno laakiin albaabka idinkoo qolkii jiifka wada galay habeenkii kaamiradu halkaasi joogtay ninka halkaas socday wuxuu dhan baa loo sharaxay oo aan meel loo dhaqaaqa aan lahayn ma fahan waa waxyaalaha marka dawladaha hadda ka daba tegay oo sabreedka aad ula dagaalamo oo kale Norway baa kamid ah meeshii sharaf dhac waa u tahay dawladii qorshoodu waa ka daba tagtay ayagii meeshuu ku ceeboobeen mataqaanaa sharciyadoodii wuxuudii khalkhal baa galay lacagoodii wuxuudii khalkhal baa galay ganaax baa lagu soo rogay marka sabreedka lama dhigi karo gabadhaa ku khaldan lamana dhigi karo wiilkaa ku khaldan labada qof hadduusan midkood uusan raalli ka ahayn midka kale sabreed ma qaadan karo ima inay toos u kala dhamaadaan ama ima inay toos isku qabaan laakiinse sabreedku waa wax ay labada qof ku heshiinayaan gabadha iyo wiilkaa ku heshiinaya gabadha waxay tegaysaa xarunta dawladda hoose waxay leedahay ninkayga waa kala tagnay sabreed ha lii qoro single mother baa loo qoriyaa lacagtii single motherka iyo lacagtii cayrta ahayd iyo way qaadanaysaa asagana tii shaqadu gooni u qaadanaya ma faham marka anigu waxaan aaminsanahay sabreedku waa wax lagu wada heshiiyey waana wax dhibaato leh oo dhaawac leh waana lacag qadaadiyo oo la eeganayo oo rafaadkaas loo marayo wey waana ka baxay maasin sakio anigu waxaan arkay gabdha aan kula heshiin oo wiilashu taas ay wateen ka war oo ay dhahayaan micnihii dhaqaalaha iyaga xaasid ku tahay micnihii dhaqaalaha iyaga saasa oo intay rag u keeneen gabadhaas iyaysan u tagin qolada gaalada ah la igala hadlo way xastaysaa oo yiri baan anigu u soo taagnaa aad iyo aad waa maasantahay waa muhiim horta dhaqanku markii bulsho u dhex yaalo oo intaasoo kumanaan ama intaasoo qof ay ku dhaqmayaan dhaqankaasi dhowr firqooyin fara badan buu yeelanayaa waxaa ka mid ah hadda gabadhaas ninkaasi ayadaa rabta oo jecel oo ilmahooda aabaheed inay ka dheeraatay diidaysaa oo ayadii baa rabta laakiinse gabadhu haddii muhiim caawa haddii tusaale ahaan cabdidhaanto isqabtaan oo cabdidhaanto ku dhow walaalay sabreed baan kala qoranaynaa haddaa dhahdniyo ama aan wada joogno ama aan kala tagno dawladdaas waxaan isku ognahay baan u sheegaya haddaa dhahdi cabdidhaanto intuu keligii u tago ma dhigi karo gabadhaas aniga ma qabo waa intaa tagtaaleed ninkayga anigu ay qabaa meel igu fura male dawladdaa marka toos idin kala furaysaa hadhowna waxaa lagu xukumayaa in ciyaalkiisa 5 kilomitir uusan u soo dhawaan karin maadaama isagu kaa tago khalad uu kugu sameeyey mo marka hadday gabadhu ninkii rabto oo isleeda ilmaha aabood uusan kaa fogaan oo ayadu ay ka daba jiitamayso asagan uu garan lahayo raxlaawu yahay waa mawduuc gooni ah laakiin sabreedka sida saxda ah waa heshiis labada qof ka dhaca waayo kana dawladdu u tagay wuxuu leeyahay gabadhan waa kala tagnay gabadhuna waxay u tagaysaa dawladdu waxay ninka waa kala tagnay hadhowna isla ayagii baa isku soo xaluulanaya hoos kala imaanay ma fahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكهلنا هذا أم أسنت سكي محوها وحنسيننا كابتن أيوب كدب نبافة كحاجة. أرتا لقن كان أتكشف كينيسا
ama nin ahaado ama naaga ahaado waxa samaynaya ama iyagoo carruurtoodii iyo sida mukhaalafada kala samaynaya ama irsiqa ku raadinaya horta waxaan wada ognahay qofna uusan diidi karin labada qofba inaysan dad wanaagsan ahayn nasabadna aysan lahayn taas waa kow tan labaad gabadha iyo wiilka yaa khalad leh waxa noo oran dad islaam ah intayada meesha ku jirta reer haddii la wada dhisto reerku wuxuu leeyahay oo ilaahay diinteenu noo sheegaysaa in ninku yahay awr amarigii meesha gabadhan iyo carruurtaana mas-uulkooda uu asagu qaaday dhaqan kaloo aan meeshan ugu nimid waa meeshiisa laakiin aan isku qabno isku guursanay diinta aan haysannahay waa islaam waxaan nahay ilaahay wuxuuna yidhi gabadhan inaa mas-uuliyaddeeda qaadayso wixii lagu neeriyaa mas-uuliyaddeeda qaada marka gogorta horta lagama geli karo man raggaa keena ma dumarkaa keena saki haddii adiga naagtaadu ay ku tiraahdo haddii aadan mas-uul ahayn go'aanna qaadan karin waxaa tiraa walaal saa yeeli maye sideen aan u kala tagno sax ayaa ka bax haddii aad adigu laftigaagu aysan ahayn midka ay ka askumayso ama keeni kara ama ku dhalin kara ama ka yeeli kara inaad xogaa yarsan darata adoo raadinaya carruurtaadii celila kusoo waxaysid oo islaan sheef carruurtaada loo sameeyo ama haddii aala ku roon yahay ama haddii aala ku roon yahay carruurtaadii yoga amti iyo balay hoos tagto waada mas-uulka banaanka maalinta boqoshada lagu ogolaado mar kasta rag iyo dumarba waxay ka suurta gashaa waxaan waa dad qalbada ka bahdileen aan nasro lahayn markoodii horena irsiq soo raadiyey iyo lacag abuur ay la gashay waddan ayay shaqaysan kara ayagoo jooga wax baran kara ayagoo jooga ay la gashay inay carruurta masaasadahooda irsiq ka aruuriyaan waana dhaqan wuxuushnima hadda dumar badan halkaa ku jira rag badan halkaa ku jira yurub bay ku wada nool yihiin ameerikay ku nool yihiin nolosha aan ka sheekeynayno waxaa laga yaabaa dumar halkaa ku jira 90% inay ku nool yihiin ragga meeshaan ku jira 90% inay ku nool yihiin baa dhici karta laakiin inaad xaqiiqada u sheegtaa idinkoo aan dhinaca u riixin baasha oran dumarka khaladka ragga ninka ee gabadhan meherka ku xirtay ee islaamka wad islaam yahay lalama wadaago naagta wax dhigi kara waradeeray aan wada isqabno reerkii wada dhaqano 200 soo xamaalay keenay ama aan carruurta wada dhaqamayna daa buu dhihi kara laakiin awr amrigi waxa heshiiska uu galay lama oran karo gabadha niswaana oo ilaahay noo sheegay oo mas'uul ka yahay lama saari karo run baan idin sheegayaa dhaqankaasi dadku 90% ma wada aha 40 ma aha 30 ma aha 20 ka mid ah dhaqanka Yurub yaala marka arkaysa dhaqankan aad qiimaysid 20% baa ku dhaqanta ka noocaan waxa keenaya inuu hay noqdo ama hadahaynta soo badatana waa dhibaatadiisa badatay carruur la qaadanayo ciyaal dayacan haddii aan la ku dhibaatadiisa badatay dhibaatada waxa badinaya waa wax dayacan way laakiin 20% baa ku dhaqanta 80 kale waa dad iimaan leh carruurtooda haysta haddii aan la ku roon yahay aan labada boqol iyo boqolku uusan ninku carruurtiisa u dayicin gabadhna carruurteeda u dayicin idinku marka wada waananayaan waan ku soo gabagabeynay waxaan dhihi lahaa war iimaanka alla ka qaad intaad carruurtaada inta dayacday hadha waa dhihi lahayd 200 bay naagtayda aan idhi soo bahalkiye kama duwana adoo yidhi xabiibi ilmahan kaa siixaynayaae or inta waddada istaagta jirka ka soo ganacso wallahi kama duwana waa haddaan raga tahay adeerow gacaliyow awlaadaada dhulka gaalada joogta dayacan ha sii dayicin hana dhigin haddii alla kuu roon yahay aabal ana dhigin gaala ha u loogin adiguna gabaray haddaa ilaahay iimaan kugu abuuray oo asaga ka iimaan kalaabaa iimaan ku dhaantid waxaad tidhaahdaa war carruurta naga dayicin lacag waa la helay carruur lama hele waa ka baxay anigu aada u mahadsantahay ayuub si fiican oo la fahmi kara u faahfaahisay qodobkaas walow dood kale ay kasii laaban tahay baafo soo dhawow aragtidaada iyo qodobkan waxaad nagu beeri karto maadaama muddo dheerna aad ku nooleed qaaradan السلام عليكم وانا سلام يا دمانتين انت ماشي ku jirta oo ugu yahay jaamacad Ibrani oo hadda title ku fadhiya meesha runtii dooda waan dhageysanay maanta oo dhan waxaadna moodaa in la isku qasay arinta laga hadlayay markii hore waxa la soo jeediyay muxuu qoysaska burbur Soomaalidu qurbaha joogay u burburaan waxa laga hadlayay qoysaskii burburay sababtay ku dhacday miyaa laga hadlayay ma ogi
midda hadda laga hadlayo kule waxaan u qaatay inay tahay dad isqaba laakiin haddana oo kala jooga separate ah. runtii separateka Europe ayuu ku badan yahay, wadamadan Australia iyo America kama jiraan, waayo meeshan waa qofka de waa inuu isaga uu iska bixiyaa wax walba. meesha waxa la qaldayo waa Europe, saa isleeyahay anna waa joogi jiray Europe 10 sano ku noolaa, halkan kuma badna waddankan hadda aynu joogno. laakiin waa run sida aad u dhigteen ayay sax tahay, laakiin haddaad fiiriso kolley dadka separateka ku jira ayaa fahmi kara haddii ay xisaabiyaan lacagaha soo gala markay separateka yihiin iyo markay is sheegtaan wax badan uma dhexeeyo. waxaa laga yaabaa in $100 wax ka yar u dhexeyso un keliya, laakiin faa'iidooyinka uu ku jiro separateka dadka isqaba laakiin separateka sheegta waxaa ka mid ah in wax walba ay raqiis ku helaan. uu jiro waxa la yidhaahdo concession, oo hadduu isbitaalka tago haddii famishi wax ka gadanayso wixii $100 waxaa laga yaabaa in half lagaa siiyo, maadaama aad tahay garo hooyo keligeed ilmo korsanaysa ama aabba keligiisa ilmo korsanaya whatever. marka way jirtaa, culummada waa la weydiiyey marar badan, jawaabta ugu weyn ay dhiibeen waxay ahayd waa beentan ilaahay ma jeclo. de waxa la sheegayay dad isqabo oo dhahay maaragtay isma qabno waa kala joognaa. sheekadii uu ka sheekeeyey Zaki oo kale waa wax xaqiiqa way jirtaa, kuwaasi kuwa ka badanba waa la arkaa. marka waa beentan ilaahay ma jeclo, waa in Allah laa yuhibbu al-kaadibiin somahan. marka waxa ugu weyn de qofku u sameynayana waa wax inay safe gareeyaan, sida uu yiri Ayub, inay maaragtay hanti kale ay ka sameeyaan beentaas ay sheegayaan. macno badanna ma sameynaysa runtii in qof weyn oo shaqaysan kara been uu sheego isagoo maaragtay walwalna haya. dad baan ogahay aniga markaan Ingiriiska deganaa oo kale, maxay ahayd marka checking ay u imaanayaan qolyaha guryaha iskale ama ceyrta, oo ay gabadhu leedahay nin ilama degano oo ilmahan keligayaan korsadaa. marka habeenkii baabuurka loogu guri jiray wixiisi macalakabihiisi iyo dharkiisi iyo wax dhanba maaragtay gaarigay ku jiri jireen. areertii hore uu iska bixi jiray intuu seexda weliba gurigiisa. markay yimaadaan waad ogtahay meeshan ballamaha waa lagu sheegaa 8, 9, 10 lagu imaanaya, lagu leeyahay lagu soo tuuraya, cidna iskama soo lugoyso. wayna barteen wadamada westernka beenta ay dadku sheegayaan intooda badan. ayaga waxay aad xoog u saaraan dadka oo halista ku ah amnigooda, oo qof rabo inuu wax dhibaato amniga ku ah u sameeyo. laakiin qofkan beenta sheegaya inta badan waxa waaye aad xoog uma saaraan, waayo wax oo waqti la isaga lumiyaa badan meesha ma yaala. waxaan dhihi lahaa marka dumar badan ayaa nagula jira meesha runtii oo aad u shaqaysta qaarkood oo aan shaqo ku lahayn waxa la yidhahdo separate, oo ninka shaqeeyo naagta shaqayso wixii lasoo shaqeeyo lasla waxeeyo. yes waa run, wixii wax ma ku dhigmayaan markii aad labadiina wada shaqaynaysaan guriga aad ku jirtaan. waa inaad si full u bixisaan lacagtiisa. Ingiriiskana waa qaali guryahooda, weygiya laga yaabaa 300 400 baan inay guri ku degan tahay ama 500 baanba qaarkood. marka waxba ma safe grace maayaan. beentaas in la sheegana waxaa waaye waxay kaa saacidaysaa in gurigii uu bilaash kuu noqdo, waxyaabo kaloo yaryarna aad iska heshid. laakiin waxaan ku talin lahaa marka hadda qarnigii 21aad lagu jiraa, dadku waa horumaray, dadku waa shaqaystaa. ninkii waxaa laga yaabaa isbuuc keligiis inaad 500 heli kartid laga yaabaa si fiican u shaqaysid oo aad isbuucaas gurigaaga aad kaafisid, wixii kaloo kuu harana de maxay aad wax safe garaysatid. gabdhaha hala siiyo microfonka, ayagaa naga khibrad badan oo meesha ku jira oo yaqaano hawshan wax badan ka hadli kara. waxaan arkayaa Samira ku jirta oo muddo ugu dambeysay. Samira ku salaamaya dhammaantiin, waa idin salaamaya. hawshu waa mowduuc aad u fiican, waxay ka fiican tahay wixii hore looga hadlayay. marka it's good in hal mowduuc inta la soo qaado oo 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo la fagro, kadibna mid kale la soo saaro, waa la kala faa'iideysanayaa. mahadsanidin. waa kaa qaada buu Ibrahim Bafo. Ibrahim aad u mahadsan tahay, saasoo jeedisay talo fiican waaye oo ah in gabdhaha nala jooga sharfan ee xog ogaalka la siiyo. sida aawadeed waxaan soo dhaweynaynaa gabar kasta oo aragti rabta inay diibato. laba mar gabadha noo kilik siisa microfonka ayaan siin lahayn hadday jirto, ama muhiim ama aan ku celino horey ama alma mid idin ka mid ah ama amaal. fikradan la jahjahay oo hadda uu Ayuubna ka dhawaajiyey oo Baafan uu maaragtay carabka ku dhuftay, dhinac walba laga fiiriyey. idinku maxaa idinkaga baxay dhageystayaasha ah? amaali soo gal.
asalaamu calaykum horta dhammaantiin waa idin salaamayaa anigu wax saasoo badan ma oranayo samiiran hadalka wuu dhiibayaa balse anigu laba kelmad un baan dhihi lahaa intii maaragtay muhiimka ahaydna dee waxaa ka hadlay ragga laakiinse anigu midaan ku darsanaya waxa weeye wax kasta oo diinteenu islaamka ah ay noo diintay waxbaa ku jira xagga sharafta haddii la eegana dee sabrikii hooyo un maantoo dhan ilmo wada un dee ilmihii qarinayso dee tii mas-uulka guriga iyo tii banaankaba dee ayadii un baa wada mas-uul ah oo dee aabihii mas-uulkii nimadii oo dhan baa laga qaaday marka anigu talo un waxaan hayaa un ah in hooyaduna dee haddii dhaqaalihii uu yaraado labaduba ay shaqeeyaan wax kastoo xalaaloo yarna ilaahay baa barakeeya dee diinta islaamkana noo sheegaysaba dee wixii xaaraam lagu keenaba dee inay baxayso dadka sabreedka haddaad wareysatana ayaga laftirkoodaba ku dhahayaba lacagtii meelay ka baxdeen ma arkayno marka caruurtuna way ku qabowdaa qoyskuna wuu ku qaboobaa wixii xalaala anu tan xalaasha un baan ku darsanayaa samiirana laakiin ooga tegaya hadalka